wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya dalka Itoobiya ayaa ku waramaya in maalintii 24 dagaalo culus oo u dhaxeeya ciidamada dawladda dalkaasi Itoobiya iyo kooxda TPLF oo ku dhaxmarayo waqooyiga dalka Itoobiya. dagaalkan ayaa la sheegay intuu socday inuu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray askar ka tirsan labada dhinac iyo dad rayda. dagaalkan ayaa la sheegay inuu burburiyay hanti fara badan oo tilay waqooyiga dalka Itoobiya waxaana dadka badi isaga barakaceen deegaanadii ay ku dagaalameen ciidamada dawladda iyo kooxda TPLF. dawladda uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa gantaalo waaweyn ku garaacday goobo ay ku sugan yihiin dad shacab sida warbaahinta qaar laga soo xigtay. maalintii 23aad ayaa waxaa gebi ahaanba isgaarsiinta ay ka maqan tahay gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya. taasna la sheegay inaan la ogaan karin khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalka iyo goobta ay ku kala sugan yihiin labada dhinac ee ku dagaalamaysa halkaas. ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa maalmo ka hor sheegay in 72 saacadood uu qabtay dagaalamayaasha iyo hogaamiyaasha TPLF inay isku soo dhiibaan dawladda, balse hadalkaasi ay ka dhaga adeegeen waxaana uu maanta oo Jimcaha uu faray ciidamada in ay howlgalkoodu ay sii wadaan isla markaana ay soo afjaraan dagaalka ka socda waqooyiga dalkaasi Itoobiya. maalintii shalay ayay ahayd kadib markii taliyaha howlgelinta dawladda Itoobiya lagu dilay meel masaafo fog u jirta magaalada Maqale ee maamulka Tigray. dilkaasi ayaana waxaa sheegtay mas'uuliyadda xoogagga TPLF. ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay cadaadisyo xoogan kala kulmaya beesha caalamka kuwaas oo sheegay in la joojiyo dagaalka isla markaana lagu xalliyo wada hadal. hogaamiyaasha TPLF ayaa laftooda waxa ay wacd ay ku mareen in ay sii wadi doonaan dagaalka tan iyo intay kaga adkaanayaan ciidamada dawladda Itoobiya. xoogagga TPLF ayaa dagaalamayaashooda waxaa lagu qiyaasay in ka badan 250,000 oo askari oo aad u tababaran isla markaana laga yaabo in ay soo jabhadeen karaan haddii looga raayo dagaalka tooska ah oo dhaxmaraya ciidamada Itoobiyaanka iyo kooxda TPLF. ku dhawaad 140,000 oo shacab oo ku nool waqooyiga dalkaasi Itoobiya dhamaantoodana ahaa Tigray ayaa isaga cararay dalka ayagoo na gaaray dalkaasi Suudaan. dadka u dhunduleela arrimaha siyaasadda Itoobiya ee rogroga ayaa waxa ay sheegeen in Abiy Ahmed uusan ku degdegi karin inuu maqalla oo weerar toos ah ugu qaado. xoogagga TPLF arintaasi ay u noqoto fursad isla markaana ay ku sii dagaalami karaan. TPLF ayaa dhawaan waxa ay weerar ay ku qaaday saldhigyo military oo dawladda Itoobiya ay ku lahayd gobolka Amxaarada gaar ahaan magaalada Baxardaar ee xarunta u ah ismaamulka Amxaarada. sidoo kale xoogagga TPLF ayaa waxa ay hore gantaalo ay ugu garaaceen garoon diyaaradeed ee ku yaala magaalada Asmara ee dalka Eritrea kaasina ay ku dhinteen dad shacab iyo askar ka tirsan xukuumadda Eritrea. haddaba wararkii ugu dambeeyay caawa aan ka helayno jiidaha hore ee dagaalka ayaa waxa ay tilmaamayaan in weli laga cabsi qabo in dagaalo xoogan halkaasi ay ku dhaxmaraan ciidamada dawladda Itoobiya iyo kuwa TPLF, balse laga dhowr sugay natiijada kama dambaysta ee xukuumadda ay ka qaadan karto dagaalka iminka ka ololaya duleedka magaalada Maqale ee dalkaasi Itoobiya.